الرحمن الرحيم سلام الله عليكم داوديال kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo hal abuurka oo ka daawataan Raja Cable TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. barnaamijka waxa idin soo saarta halkaan idin kala socodsiinaysa anigoo ah Falastiin Khaliif Yuusuf. mar kale iyo barnaamijka haweenka iyo hal abuurka. maanta waxaan ku eegaynaa barnaamijka doorka hablaha waxbartay ay ku leeyihiin hal abuurka ganacsiga. waxaana igu marti ah xilkas cali diiriye oo kamid ah gabdhaha aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada Muqdisho. xilkas ku soo dhawaw barnaamijka adigoo ku bilaabaysid magacaaga iyo taariikh nololeedkaaga oo kooban. bismillaahir rahmaanir rahiim. Falastiin aad u mahadsan tahay. magacaygu waa xilkas cali diiriye. waxaan wax ka bartaa magaalada Muqdisho gaar ahaan jaamacadda Somali International University SIU. waxaan bartaa Public Administration ama maamulka maareynta sida u taqaano. aad iyo aad baad mahadsan tahay. xilkaas anaguna ka mahad celinaynaa sida quruxda badan barnaamijka aad kugu casuunay maanta nagala qayb qaadanaysid. su'aashaan ku weydiinayaa xilkaas waxa ay tahay muhiimad intee leeg ayay u leeyihiin gabdhaha wax bartay in ay la yimaadaan hal abuur ganacsi. Falastiin aad u mahadsan tahay. qof waliba oo wax baratay ama qof wax loo barayo waxa taa waa inuu macnaha wax soo saar yeesho ama uu maskaxdiisa wax ka bedelo. kulama qofka wax la baro oo wax barto ama uu waxbarashadu si fiican u soo dhaxgal waa kulama maskaxdiisa ay korto. sidaas darteed macnaha wuxuu keeni karaa hal abuur badan ama fikrado badan oo ganacsi. dumarka inta badan waxa lagu tilmaamaa in ay ku yar yihiin waxbarashada oo amaba aanay dhameysan heerarka kala duwan ee waxbarashada. maxaa sababa ayay kula tahay? waxaan isleeyahay aragti ahaantayda horta koo waxbarashadii dalka oo ahayn waxbarasho free ah oo mostly lacag ah. reerka markii waxbarashada lacagtaana markii wiiliga war iska soo barbaaran dhaqanka Soomaalida waxa weeyaan de wiilasha aan wax la baraa. macnaha u badna gabdhaha goobaha waxbarashada waxa leeyahay gabadha wiilka qadada u diyaari cashada u diyaari asagana waxbarashada macnaha maadaama aabuhu nacayb ama hooyada nacayb ay wiilka nacabta ma ahan ay gabadha nacabta ma ahan. macnaha wiilka gabadha waa la wada jecel yahay laakiin waxa isla wiilka Britol asaga wax soo saari karo macnaha waxyaabo ragnimo leeyahay ama rag ay aaminsan yihiin. sidaas darteed gabdhaha waxay u badan tahay in waxbarashada loo diro. tan kale marka u soo laabano inay waxbarashada dhameystiran waxa laga yaabaa gabadhii markii ay wax baranayso ay macnaha ay reer samaysto oo ay guursato in ay familkeeda macnaha ama ninka guursadana uusan macnaha uusan ku taagin waxbarashadeeda. waxbarashadu qof aan mooraan lahayn ama waxbarashada lagu dhiirigelin wax ma baran karo. sidaas darteed waxa laga yaabaa familkeedina markii gabadhu ay nin guursato familada qaarkood inay yiraahdaan maanta reerka dhaqo orod ninkaas raac ninkiina inuu yiraahdo walaalay anaa reerka banaanka u aadaya adiguna guriga joog. sidaas darteed ma si dhameystiri karto waxbarashadeeda. waa mahadsan tahay. waxaa noo sheegtay in dhankii waxbarashada marka la yiraahdo raggii ama wiilashii ay reerku markaasi ayagu leeyihiin wiilku waa inuu wax bartaa oo ay si ay u yiraahdaan wiilkaasi wuxuu keeni karaa ama uu shaqo u sameynaya ama reerku wax ku soo kordhinaya. maxaa u diidaya gabadha inay ayadu si lamid ah wiilkii haday wax baratay ay reerkii ku soo kordhiso wax badan oo ay la timaado hal abuur ganacsi amaba shirkadaha kala duwan ee wadanka jira ay ka shaqeyso. wax u diidaya ma jiraan laakiin macnaha wax markii laga hadlo macnaha historicalka ama waxyaabaha waxbarashada dadka macnaha waalidiinta ama dadka Soomaaliyeed dhaqankooda waxay aaminsan yihiin waxay tahay macnaha inkastoo hadda laga sii ilbaxayo oo gabdhaha waxbarashada loo soo diraayo waxay tahay macnaha waxa la isleeyahay gabadhan maanta haddii aad wax barto awal Britol inaad guursanay ninkaas reerkiisa waxbarashada la aaday marka wiilkana reerka wax ku soo celinayo wiilka waxbarashada hala geeyo. sidaas darteed oo wiilkii gabadha la kala door waxa wiilka loo door bidaa macnaha Britol ama reerka u shaqeeya oo aabaha u bedela. waa gartay. marka ma la oran karaa caqabadaha dhanka waxbarashada ee gabdhaha haysta ragga ayaa sabab u ah. taas markaan ku leeyahay waxaan aragnaa gabdhaha oo kale rag markay guursadaan ma ogola qaarkood inay gabadhaasi ay wax sii barato ama nolosheeda ay sii hormariso. sideed u aragtaa? ani aragti ahaantayda waxay tahay gabadhu markay rabto inay wax barato ninka guursada macnaha sabab kuma ahan ama sabab kuma la waxbaranaysa wax baran sababtoo qofka markuu aad waxbarasho ku jiro qofka marka koo ay isla heshiinayaan macnaha waa inay kula heshiisay ay tiraa walaalo waxaan bartaa qofkuna macnaha qof levelkiisa u raadsada hadduu qofku uu ninku yahay nin wax bartay gabadhan ay gabar wax bartay waa isla fahmaan laakiin ayadoo gabadhi wax bartay haddii qof aan waxbarashada aan fahansanayn ama meelo kale wax ka fiirina ay macnaha ay nolosha isla wadaagaan ama reer san wada noqdaan
waxay u badan tahay inuu waxbarashada ka reebo. laakiin markuu qof waxbarta yahay oo qof waxbarashada macnaha muhiimadda ay leedahay ay og ama aqoonsan u yahay, marnamo waxay la tahay inaysan culayska ku ahayn inuu gabadha waxbarashada sii wato, sababtoo ah guriga laga soo dhiirigelinaa sidii guri hooyo iyo aabaheed markay joogto loo soo dhiirigelinaa markaan sidaas darteed waxay la tahay inay waxbarashada sii wadan karta ani ahaanteyda markaa ka hadlo. aad iyo aad dhanka shaqada iyo waxbarashada markii aan eegno, gabadhu iyadoo waxbaranaysa haddana ma shaqaysan karaysaa oo ma isku wadi kartaa labadii dhinacba inay shaqaysato haddana ay waxbarato? dabcan haa, sababtaa waxaa jiri karta hadda for example gabdho badan oo Soomaaliyeed inay u shaqeeyaan si ay wax u bartaan, oo for example markii iskuul dugsiga ay ka soo baxdaan ay isdhaahdo familka oo culays ka qaad waxbarashada maadaama ay sidii iskuulka aysan ahayn oo macnaha jaamacaddu ay ka culus tahay ama qarashaan ay ka tiro badan tahay dhankii waagii iskuulka la joogo. marka waxay gabadha waxa laga yaabaa inay shaqo u raadidaba si ay wax u barato ama ay waxbarashada ugu dabarto inay shaqada u raadiso. marka waxaa is leeyahay waa waxa la isku wadi karaa sida aan aragna gabdho badan oo magaalka joogana oo hadda businessyada kala sameeyay waa gabdho wax bartay ama intii wax baranayeen ay sameeyeen inay waxay intii wax baranayeen waxay sameeyeen inay hal abuur la yimaadaan ama ay shaqaystaan. aad iyo aad adigu waxaad ka mid tahay ardayda magaalada Muqdisho wax ku baratay, haddana hamiga kale inay shaqaystaan oo cilmiga ay barteen cilmiga aad baratay aad uga sii faa'iideyso dadka kale. ma kula tahay gabdhaha kula midka ah ee sidaadoo kale wax barteen ayaguna shaqooyinka kala duwan amaba hal abuurada ganacsiga kala duwan waa u fududeyn karaa cilmiga ay barteen? haa dabcan, sababtaa markii qofku uu wax barto aniga hadii markii maanta qof wax bartay qof wax baro suuqa loo soo diro qof wax barto uu ka fursad badan yahay qofka aan wax baran. sidaas la mid qofkan macnaha wuxuu ogaan karaa hal abuur la iman kara ama suuqa shaqada markii la yimaado qofku wax soo bartay markuu yahay wuxuu leeyahay criteria uu suuq soo gali kara ama istiraatiijiyad suuq soo gali kara. laakiin hadii aad wax baran suuq istiraatiijiyad ku soo gasho ama meelaha shaqada uga timaado ma aqoon kartid ama ma garan kartid. waa gartay. markii la yiraahdo haweenka iyo hal abuurka ama shaqooyinka kala duwan, shaqada ugu fudud ee haweenku ay qaban karaan maxay tahay? haweenku shaqo aysan qaban karin waxay la tahay ma jirtaba. marka laga reebo macnaha shaqooyinka waxaa jira shaqooyin xoog u baahan iyo shaqooyin maskax u baahan. marka shaqooyinka xoog iyo macnaha marka xamaal marka laga soo tago shaqooyinkaas rag gaar u ah, laakiin inta kale shaqo jirto oo macnaha maskax laga qabanayo waxaan isleeyahay haweenku waxay qaban karin ma jirto. sababtoo ah qofku markaad wax soo baratay oo maanta adii wiil wax soo barateen markaad meesha for example waxaad soo barateen networking ama cilmi IT oo kale, ina cilmi IT aad ku shaqaysid oo macnaha computerka aad ku shaqaysid macnaha culays ku keenaysa ama culays gooni oo wiilka isku qabanayso. sidaas darteed waxaan isleeyahay waa shaqo walba oo cilmi ah ama maskax u baahan dumarku ka shaqay karaa. aad iyo aad fariinta aad u reebaysid dumarka maxay tahay? dumarka Soomaaliyeed fariinta u reebaa waxay tahay qaasatan gabdhaha dhalinyarada oo wax bartay horta first inay Ilaahay ka cabsadaan oo waxa way cibaadada Allah hormar lagu gaaro Ilaahay ka cabsadaan. second inay iska dhaafaan waxyaabaha dhaqamada reer galbeedka nooga yimaado ama waxyaabo waxa jirto hadda nagu soo batay oo macnaha dumarkii waxyaabo waxay aamineen baa macnaha in la yasaay amal oo kale. marka wax ku yasaay ma jirtaan, qof aad tahay qof noolaata waa shaqaysan kartaa wax walba qabsan kartaa. kaliya aad Ilaahay ka cabso xilli saa wax u baratay waxbarashadaadana cilmiga soo baratay dee suuqa la imo guriga hala fariisan oran lahaane. aad iyo aad baad u mahadsan tahay inuu kaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee barnaamijka aad nagala qayb qaadatay. waad mahadsan tahay halkaas. waa mahadsan tahay walaal. waa tahay daawadayaal guud ahaanba intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka haweenka iyo hal abuurka oo halkaan ayaan idinkala socodsiinayay. waxaad ka daawanayseen Raja TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. tan iyo barnaamijkaani mid lamida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.